ardayda dhigata dugsiga sare ee Cabdisalaan Secondary School ee magaalada Berbera ayaa maanta mudaharaad ballaaran ka sameeyay jidadka waaweyn ee magaalada Berbera iyagoo socod ku soo maray qaar ka tirsan jidadka halbowlaha ee isku xidhay magaalada Berbera. Mudaharaadkan oo ahaa mid aad u ballaaran isla markaana ay kaga cabanayeen macallimiin la'aan soo food iyagoo tilmaamay inaanay qaadan xiisado badan oo ay xaq u lahaayeen macallimiintii dhigi lahaydna aanay ka soo xaadirin iskuulka. Mudaharaadkan oo socday waqti kooban ayaa hakad geliyay dhammaan isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga iyagoo ardayda mudaharaadka sameynayay ay dhagxaan ku xidheen laamiyada isla markaana ay taayir ku shideen jidadka magaalada Berbera. Haddaba TV Kalsan oo kamarada la dhex qaaday ardaydan mudaharaadka sameeynayay ayaa wax ka weydiiyay sababaha keenay inay sameeyaan mudaharaadkan waana kuwan qaar ka tirsan ardayda mudaharaadka sameeynayay. waxaan ku direynaa haddana ana boqolka sanadkan agooda saaxil inaan sanadka wax dhigan wasaddex tawaarana wax dhigan waxa la iskiray oo maanta loo yimi waxbarashadeedii oo iyada hoos u dhac ku yimi kadibna markii aanu ka doodnay waxaana loola yimi in lagu jawaabo anaga qori jiray waxaan tagnay wasaaradda waxbarashada markaan codkayga dhiibnay waxaana lagu soo saaray waxaana loo garan waayay in codkayga laga dhageysto kadibna waana la soo dareeyay markii la soo dareeyayna xoog baan loo adeegsaday annaguna waxa muddo kadib waxaa soo gaaray barasabka gobolka Saaxil oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Berbera kuwaas oo aad iskugu hawlay daminta mudaharaadkan. nasiib wanaag barasabka gobolka Saaxil iyo xildhibaanadii la socday waxay markiiba ku guuleysteen inay ardaydii mudaharaadka sameeynayay dib ugu celiyaan iskuuladii isla markaana ay ku qanciyaan inay cabashadooda wax ka qabanayaan. Ugu horreeyna barxadda hore ee dugsiga sare ee Cabdisalaan waxaa kala hadlay xildhibaan Salebaan Cali Khayre oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka kuwaas oo ardayda ugu ballan qaaday inay cabashadoodana ay guddi u saaraan ku hadasho afkooda si ay maamulku u dhageysto waxaana hadaladiisi kamid ahaa maanta ka dhacay magaalada waa mid dhibaato keenaya haddii uu sii socdo maadaama guddoomiyihii gobolku hawshiinii wax ka qabanayo cabashadiinii la dhegaysanayo aynu inaguna si talbiyaadle u dhegaysano. waxaan iyaguna halkaa ka hadlay qaar ka tirsan ardaydii mudaharaadka sameynayay oo cabashadooda u gudbiyay barasabka gobolka Saaxil iyo xildhibaanadii la socday iyagoo dhinaca kalena ballan qaaday inaanay sameyn doonin mudaharaad dambe. Barasabada waxay ku jirtay yiri oo way siitamayeen macallimiinta ka wanaagsan uu siitamay midna muhiimanayba cabashooyinkay waa muujinay gudoomiye dad sidaan hore kuu sheegay waxaa san kuuni wasaaradda waxbarashada waa noo timi fontriga waxaa tii way la joogaya toddobaad maalin baan noo timi laba galka tag bulsha tag iskuulka ma ina arday dhigato loo mud ina arday dhigato loo mud xildhibaano bulshadan ardayda cabdiraad ka tirina aan kula talnay in la reebo wixii maanta ka dambeeya gudoomiyaha loo balan qaaday horena waa nagu balan qaaday inaan wax wada qabsano badina waxaa halkaa ka hadlay barasabka gobolka Saaxil kaas oo qaatay go'aan geesinimo leh riyaaqeen ardaydii mudaharaadka sameeyay. anagu waxaan diyaariyeedan wixii awoodayda iyo karaanka iyaga inaan waxba kala hayo waaw meelo waxbarashada sanadkii hore marka ka cawateen labada gelib oo ay ka dhigay cidii ka faa'iideysanaysay imika macallimiinta waa qabano labada gelib oo la dhigay wixii kale ee iskuulka gudihiisa ka jira ee arrinkeeduna maaha waxa xaq u leeyihiin mise wax kale inagu hoos nabna hadda waxa xaq u leeyihiin waxbarashada in idinka hagaajiyo xaq baa u leeyihiin wixii kale iskuulka dayacad ka jira in la hagaajiyo xaq baa u leeyihiin wixii maamulka ee markaa idinka xun in la idin toosiyo xaq baa u leeyihiin markaa waxa weeyaan laakiin wadada imika taayirka ku shidayso wadada miyaan adigu lahayn adiga ale wata وأحمد سيد محمد تلفزيون عالمي قايد كلسن TV مقالة بربراء.